kusimaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta gudoomiyay shirka tubta siyaasadda loo dhan yahay oo looga hadlayay hanaanka dowladnimo ee qaranka iyo sidoo kale maqaamka caasimadda. kulanka maanta ayaa ugu horeeyay waxaa looga doortay xulashooyinka hanaanka dowladnimo ee qaran ee uu yeelanayo ee la midka ah hanaanyaasha dowladeed ee caalamka ka jira, waxaana la isku afkartay in dooda la sii wado natiijada kasoo baxdana lagu soo gudbiyo tubta siyaasadda loo dhan yahay. mas-uuliyiinta ka socda hay-adda iyo wasaaradaha halbeegyada ku leh tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa sidoo kale ka dooday maqaamka caasimadda Soomaaliya ee ku yeelanayso hanaanka federaaliga ah ee dalka, waxaana xulashooyinka saddex ah shirka loogu soo bandhigay iyana sidoo kale si ballaaran looga dooday. ugu dambeyn shirka ayaa looga hadlay waxqabadkii tubta siyaasadda loo dhan yahay ee 3 bilood ee ugu horeeyay sanadkan 2019, iyada oo kusimaha ra-iisul wasaaruhu faray dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha halbeegyada ku leh tubtan inay soo gudbiyaan waxqabadkoodii tagay.